iskuadka koobka FIFA Arab Cup Qatar 2022 ayaa lagu qabtay magaalada Doha ee dalka Qatar. Sagaalka wadan ee ugu sareysa groupka ee ku jira wadanka martida loo yahay Qatar ayaa ku biiri doona 7 kooxood ee ka soo gudba heerka isreebka tartanka iyadoo markaasi ugu dambeyn 16 kooxood ay tartanka qayb gali doonaan iyadoo 16 kaas wadan loo qaybiyay afar groupka ee Qatar Iraq ayaa si toos ah tartanka ugu qayb galaya halka Oman iyo Soomaaliya iyo Bahrain iyo Kuwait ay sidoo kale soo ciyaari doonaan kulamada wajiga hore ee isreebka. Groupka B Tunisia, dalka isku taga Imaaraadka Carabta iyo Syria ayaa si toos ah u aadaya heerka groupka halka Mauritania iyo Yemen ay isku beegmeen kulamada isreebka. Groupka C Morocco, Saudi Arabia ayaa toos u aadi doona tartanka groupkiisa halka Jordan iyo South Sudan, Palestine iyo Comoros ay ku biiri doonaan Morocco iyo Saudi Arabia oo group C majraha u haya. Groupka B Algeria iyo dalka Masar ayaa toos u aadi doona tartanka halka Lebanon, Djibouti ay isku beegmeen halka Libya iyo Sudan ay sidoo kale isku beegmeen. Afarta kooxood ee ku guuleystay groupka iyo afarta kooxood ee u soo baxday heerka groupada ayaa u soo gudbi doona kulamada quarter finalka ayuu markaas la ciyaari doona sidoo kale kulamada booska saddexaad loogu tartamayo. tartanka ayaa la soo gabagabeyn doonaa dhamaadka bisha December ee 2021. Iskuadka waxaa lagu saleeyay qaabka markaasi qiimeynta bilaha ee FIFA ay kaga jiraan wadamada iyadoo markaasi wadanka Oman oo ku beegmay Soomaaliya wuxuu ku jiraa qiimeynta bilaha ee FIFA kaalinta 8aad halka Soomaaliya qiimeynta bilaha ee FIFA ay kaga jirto 197. Bahrain waxay qiimeynta bilaha ee FIFA ay kaga jirtaa booska 99aad waxayna ku beegmatay qaranka Kuwait oo 148 kaga jira qiimeynta bilaha FIFA. Xulka kubadda cagta ee qaranka Soomaaliya ayaana markii ugu horeysay ka soo muuqan doona koobkan kubadda cagta oo gogol xaar u ah koobka kubadda cagta ee adduunka ee 2022 lagu qaban doono dalka Qatar. Xogayaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Dr. Yusuf Muhidiin ayaa goorsii horeysay iclaamiyay in Soomaaliya ka qayb gali doonto koobkan oo ay markaasi u tahay fursad weyn oo ay Soomaaliya halkaas ku soo bandhigi doonto waxtarkeeda kubadda cagta isagoo markaasi rajeeyay in uu noqon doono xul xoogan oo ka qayb galaya dhacdadan oo ay ka qayb galayaan wadamo badan oo kamid ah jaamacadda Carabta. Tan iyo bishii Febraayo 2022 Soomaaliya ma haysan wax tababar ah kadib markii shaqada xulka uu ka tagay Bashir Herford oo xulku ku hogaamiyay guushii ugu horeysay kulan ka tirsan koobka adduunka isreebkiisa. Somalia national team belongs to them. hagaag waxaan u sheegayaa taageerayaasha Soomaaliya qaranka ayaga ayaa iska leh waa inay u sacbiyaan oo ay u istaagaan xulkooda waa inay jeclaadaan xulkooda Soomaaliya ayaa iska leh ciyaartoyda Soomaaliya matalaysa waa ciyaartoyda Soomaaliya waa inay jeclaadaan wadan kasta wuxuu isticmaalaa ciyaartoydiisa professionalka ah Argentina Theory waxay keenan Messi maxay u keenan wuxuu ka ciyaaraa horyaalka Spain Spain xulka Portugal qaranka dhan waa dibad joog Ronaldo maysan iloobin annagana waxaan rabnaa inaan sidaas oo kale aan sameeyno. Gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cabdiqani Saciid Carab oo ka qayb galay iskuadka ayaa markaasi sheegay in koobkan uu Soomaaliya u hogaamin doono tababaro cusub oo ajnabi ah isagoo markaasi shaaca ka qaaday in hadda markaasi wada hadal ay kula jiraan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta. waxaan xiriirku marka uu aad ugu baadi joogaa oo diyaarinaya in horta marka hore qaranka oo helno national team coach oo head coach ah oo ka aqoon iyo waayaranimo badan kuwa aan hore u isticmaalaynay waan helno coachka hadda waxaan noo socdaa wada hadal in agreement ina dhameystirno wax xiriirku kubadda cagta inuu keeno oo rabana ma ahan kaliya coachka waa coach iyo staffkiisa isla socda waagi hore waxaa isticmaali jirnay style ah in macallin la keeno kaliya laakiin hadda waxaa isticmaalaynaa macallin iyo staffkiisa isla socda in la isticmaalo waxaan la socon doono macallinka ama coachka head coachka hadii heshiisku noo socdo macallinkii tababari lahaa golayaasha waxaa la socdo macallinkii fitness trainingka bixin lahaa isla markaasna physiotherapist u ah kooxdii intaasoo staff isla imaan doono. Xulka kubadda cagta Soomaaliya ayaa lagu tilmaamay inuu qaaday wadada isbedelka iyadoo inta badan ciyaartoyda kulamada ugu dambeysay u matashay xulka laga soo xulay dalka dibadiisa. waxay tani lagu tilmaamay inay ahayd door fiican oo markaasi lagu helay ciyaartoy waxtar leh oo xulka qaranka Soomaaliya ku soo celiya wadadii guusha iyadoo dadka sida weyn oo la socda kubadda cagta ee Soomaaliya inay qabaan in xulka uu markaasi hadda uu soo kacayo isla markaana loo baahan yahay in si gooni ah ish loogu hayo. markaan qiimeeyna saddexdii ciyaarood ee ugu dambeysay Soomaaliya ay ciyaartay kulamada waaweyn
Djibouti ciyaar saaxiibtinimo hal yeber ay guuldaro kala kulantay. Hal yeber Zimbabwe ay sidoo kale ka badisay, iyadoo sidoo kale guulo ay ka soo gaartay ciyaarihii Sekafa Sierra Challenge Cup. Sidoo kale guuldaro ay kala kulmeen kulankii lugta labaad ee sareebka koobka adduunka xulka qaranka dalka Zimbabwe. maxaad u rajeynaysaa wiilasha Ocean Star ee ka soo muuqan doona koobka Arab Cup kulamadiisa wajiga hore ee sareebka? miyay macquulta in Soomaaliya ay markaasi u gudbaan kulamada heer group stage-ka ayadoo markaasi ay ku biiri doonaan xulal aad u adag oo lagu qiimeeyo kubadda cagta qaaradda Aasiya?